maanta waxay u tahay maalin farxadeed dhalinyaradani Soomaaliyeed oo maxbuus ku ahaa waddanka Hindiya waxaana maanta oo ay waddankooda ka soo degeen laga dheehanayaa sida ay ugu faraxsan yihiin inay mar kale dib ugu soo noqdaan waddankooda. tirada dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta timid ee dawladda Soomaaliya ay suuragelisay in laga soo daayo xabsiga dalka Hindiya ay gaarayaan 41. xeerlaaliyaha qaranka mudane Axmed Cali Daahir ayaa faahfaahin badan ka bixiyay sii deynta maxaabiistan Soomaaliyeed. dadkii Soomaaliyeed ee dambiyada loo haystay ee ciqaabtoodu noqon lahayd dil kan ugu yarna uu noqon lahaa 30 sano xariga dadaalkii ay dawladdu ka gashay in maanta ayagoo xor ah waddankooda ku soo celin waa waqti aad iyo aad u wanaagsan 120 qof oo maxaabiis ayay ahaayeen laba ayaa xabsiga ku dhimatay Allah u naxariisto 118 kalena 42 kamid ah ayaa maanta ku soo degtay garoonka Muqdisho oo ka soo qaadnay Mumbai 76 hartayna 25 bisha Febraayo ayay imaan doonaan haddii Alle inuu maxay yeelay xukunkii sahlanaa ayaa waqtiga uga eg dawladdan waxay diyaar u tahay iyagana inay soo gudbiso waxaan u mahad celinayaa dhammaan cid alla cidii ka qayb qaadatay oo ugu horeyso dawladda Soomaaliyeed hay'adaheeda oo dhan. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa mahadcelin ballaaran u jeediyay dawladda Hindiya waxaana uu sheegay in xukuumaddiisu ay raadin badan ugu jirto sidii dhalinyarada Soomaaliyeed ee wadamada caalamka ku xiran dib loogu soo celin lahaa waddankooda. shacabka Soomaaliyeed waxaan leenahay meel walba ay joogaan inta dhalinyaradeen oo ay dalka dibadooda ku xiran tahay sidaan waagi hore idin sheegay ma nasan doona haddii Ilaahay yiraahdo inta qof Soomaaliyeed meel ku xiran yahay waan soo deyn doonaa kuwa halkan yimid iyagana waxaan leenahay dalkiina ku soo dhawaada waxaan u sheegaynaa waalidkood la caweeyo caruurtiina waxa kale oo aan leeyahay haddii aan gacmaha isqabsano maalin walba guul sidaan ay mid ka fiican ayaa noo soo hoyanaysa waxaan u hambaleynayaa dhammaan dadka ka shaqeeyay waxaan u mahad celinayaa dhammaan hay'adaha dawladda arrimahan ku howlanaa waxaan leeyahay Soomaaliya ha noolaato waa mahadsantiin. dawladda Soomaaliya waxay sheegtay in tiro kale oo gaaraysa 76 ay wali ku sugan yihiin xabsiyada dalka Hindiya kuwaasi oo imaan doona waddan sida ay dawladdu sheegtay 6 Febraayo ee sanadkan marka laga reebo 2 maxbuus oo ku dhintay xabsiga ku yaala dalka Hindiya. Nasr Maxamed Cabdi Universal TV Muqdisho.